ayaa qayb ka ah dadaalkiisa uu Ruushku ku doonayo in reer galbeedku ay aqoonsadaan booskiisa iyo saameyntiisa oo uu sidaana ku bedelo xeerarka ciyaarta caalamiga. Majalada Lobes ee ka soo baxda dalka Faransiiska ayaa daabacday warbixin ciwaan looga dhigay 30 sannadood kadib markii uu burburay midowgii Sofiyeeti, cadowgaasi weli waa uu nool yahay. Warbixinta waxaa lagu yidhi dhammaadkii cahdigii midowgii Sofiyeeti waxaa loo haystay inuu khasaaray oo uu dhammaaday cadowgii ka soo horjeeday reer galbeedku, waxaana loo qaatay taariikhda soo dhaafay. Laakiin taasi waxay socotay wax yar, khatartiisiina waxay mar kale la soo dhalatay madaxweynenimada Vladimir Putin. Warbixinta waxaa la isku weydiiyey sababta ay reer galbeedku u ilaaween wakhtigaa in Ruushku uu yahay Ruush, kaasoo ah dhaxalka boqortooyo weyn oo inkastoo ay 80 sannadood soo martay xukun shuuci ah, haddana ay weli dugsanayso awooddoodii boqortooyo iyo dabeecadda taliye lagu soo tababaray iskuul sirdoon oo ay lahayd hay-addii KGB, kaasoo ah Vladimir Putin oo aaminsan oo keliya loolan awoodeed, iyadoo iska horimaadka cusub ee uu ka bilaabay Ukraine uu ku doonayo inuu ku khasbo reer galbeedku inay aqoonsadaan qaybta Ruushka uu ku leeyahay saaxadda caalamiga. waana xilli ay weli halkaa yihiin wadamo reer galbeeda oo aan Ruushka u arkaynin inuu yahay khatarta koowaad ee hortaagan. Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku eedeeyay Shiinuhu inuu yahay khatar dhinacyo badana oo ku soo wajahan dalalka reer galbeedka, waxaana uu ku baaqay wadamada xulafada in hal meel looga soo wada jeesto Shiinaha si looga hortago buuri inay adeegsato dana ganacsi oo ay ku kala qaybiso wadamada reer galbeedka. waraysi uu siiyey shabakadda TV-ga caalamiga ee Global News oo la sii daayay Sabtidii, Trudeau waxa uu yidhi xifaaltanka ayaa ka dhex qarxay asxaabta sababtoo ah waxaanu nahay dimuqraadiyad iyo hanti wadaag isku dayaya inay horumariyaan xaaladooda, gaar ahaan marka la eego fursadaha dhaqaale ee gaarka ee heerka sare u sii kacaya ee Shiinaha. waanu tartamaynaa. Shiinuhu waxa uu janjeersaday inuu si xirfadaysan noogu dhex abuuro isku dhacyo suuqa furana iyo qaabab kale oo tartan. Ra'iisul Wasaaraha Canada waxa uu intaa ku daray in wadamada reer galbeedku ay wanaajiyaan habka ay wax u wada qabsadaan